That seems a little bit like either superhero or supervillain. You have to choose one. waxa huwaala markaad maqasho billionaire inuu kugu soo dhacayo magacan ah Elon Musk hadaba yuu yahay qofkan xaguusa ka soo jeeda sidoo kale sidoo ku awooday inuu ku dhiso boqortooyada billionaireska inta leeg mideeda kale maxay tahay sababta ugu weyn ee uu Twitter la wareegay hadaba baaritaan badan kadib waxaan kula wadaagi doonaa wax walba aad rabtay inaad ku ogaato Elon Musk iyo midda ugu muhiimsan oo ah maxaad ka baran kartaa guulihiisa iyo guuldarooyinkiisaba muuqaalka waxaan isku ogaanaynaa qofka dhabta ah uu yahay iyo sidoo kale wajigiisa dhabta ah ka qarsoon si aan iskula fahanno waxaas oo dhan isku day inaad la socoto ilaa dhammaadka muuqaalkan si aan uga salgaadhno qofka dhabta ah ee uu yahay ninkan hadaba ninkan lagu magacaabo Elon Musk wuxuu ku dhashay dalka South Africa taariikhdu markay ahayd 1971 hadaba ninkan yaraantiisa markaan dib u fiirno wuxuu soo maray caruurnimo aan oran karno mid aad u dhib badan sidoo kalena saameyn weyn ku reebtay wuxuu caga jugleen badan kala kulmi jiray ciyaalkiisa iskuulka xidhxidhnaantiisa darteed xitaa wuxuu wareysi ku sheegay in marar badan ay tumi jireen ciyaalkii iskuulkiisu waxa jira maalin in iskuulka lagu soo tumay tumitaankaas awgiisna uu dhakhtar u aaday weliba wejigiisa oo dhaawacan marka uu ka soo laabtayna uu gurigiisa kula kulmay aabihii kaasoo hal saac canaananayay asagoo ku eeday wax walba inay khaladkiisa ay ku dhaceen dhammaantiin waan wada dareemi karnaa ciilka iyo dhibaatada ay leedahay carruurnimada noocaas inaad ku soo korto sidoo kalena saameynta ay kugu reebto ma ahan midaad si sahlan ku hilmaami karto markaan u soo laabano dhanka aabihii waxaa jira xogo badan oo sheegaya in Elon Musk aabihii ahaa maalqabeen sidaas darteedna Elon uu maalqabeen ku noqday hantida qoyskooda midaasoo gebi ahaanba ayna wax ka jirin sida uu Elon afkiisaba ka sheegay siday ahaataba waxa uu Elon gaarka u lahaa ayaa ahayd xirfadda kombiyuutarka iyo programmingka taasoo ka dhigtay asagoo da'diisu tahay kaliya 12 sano inuu sameeyo uu isla markaana ku iibiyo lacag gaaraysa $500 waliba asagoo ku jira da'da 12 waana markaas marka uu qaaday talaabadiisii ugu horeysay ee space hadaba Elon yaraantiisii wuxuu ogaaday awoodda ay leeyihiin ibni aadamku waxa ay sameyn karaan iyo sidoo kale waxa ay xaqiijin karaan haddii ay isgarabsadaan xaqiiqdiina waa midaas midda Elon ku dhalisay inuu wax badan isweydiiyo asagoo da'diisu yartahay walibana dhiirigelin ka qaadanaya South Africa ayuu ka soo wareegay markii da'diisu ay 18 asagoo u soo wareegay dalka Canada halka uu ka sii tagay Pennsylvania asagoo halkaas wax ka bartay sidoo kalena halkaas ku qaatay shahaadadiisa economic iyo physics kadib wuxuu soo wareegay California asagoo da'diisu tahay markaas 24 si uu halkaas uga diyaariyo shahaadadiisa PhD-ga laakiin taa beddelkeeda wuxuu bilaabay businesskiisii ugu horeeyay uma malaynay inaan halkan ku soo koobi karno business walba oo ninkan sameeyay laakiin waxaan soo qaadanaynaa businessyadiisa kuwa ugu muhiimsan sidoo kalena guulaha waaweyn gaadhay qofkii raba inuu si xeel dheer u ogaado wuxuu akhrin karaa buugan si dhammaystiran laakiin si kooban aan u soo qaadano businessyadiisa ugu muhiimsan sidoo kalena ka dhigay ninkan shakhsiga ugu maalqabaysan dunidan oo dhan hadaba maadaama uu Elon xirfad buuxda u lahaa qaabka uu internet ku shaqeeyo waxa uu fududeeyay inuu asaaso software kale oo ay dadkuna ka faa'iidi karaan asaguna uu lacag ka sameyn karo halkaas uu ugu dambeyn ka asaasay asaga iyo walaalkiiba kambanigiisii ugu horeeyay kaas oo uu ugu magac daray Zip2 taariikhdu markay 1995 hadaba software-kan ayaa lagu qeexay inuu ahaa software u fududeynaya media inay xogahooda daabacan u bedeli karaan qaab digital ah xisaabtana ku darso waqtigu waa 1995 waxyaabahan oo kalena aad ayaa loogu baahnaa gaar ahaan markay timaado dhanka media waxay ahaataba Elon kambanigiisa ugu horeeyay dhibaato yar kala ma kulmin oo heer waxa uu gaaray xitaa inuu xafiiskiisa seexdo hadaba sida uu Elon sheegay ma uusan haysan qarash ku filan oo uu ku kireyso xafiis iyo guriga marka waxa uu soo baxday labadooda mid ka mid ah inuu kireyso asagoo ugu dambeynna go'aansaday inuu xafiis kireyso sababtoo ah asaga ayaa ka qarash yaraa waqtigaas a place to stay and an office so I rented an office instead because I got a cheaper office than I could get a place to stay and then I just sort of slept on the few maadaama uu xafiisku weynaana waxa uu fududaatay inuu ka helo boos uu seexdo hadaba qof walba u maleynaya inuu ninkan yahay nin ay nolosha horraantiiba u kuftay xaqiiqadu saas way ka gedisan tahay ugu dambeynna 3 sano iyo bar kadib kambanigiisa Zip2 waxa uga soo xarootay lacag gaaraysa $307 milyan oo dollarka Mareykanka halkaas oo 22 milyan ka mid ah lacagtaas ay si nadiif ugu soo dhacaysay jeebka Elon hadaba halkaas oo kaliya ma wadan ku joogsanin ee markiiba wuxuu hawlgalay sida uu u bilaabi lahaa kambanigiisa xiga halkaas oo uu ugu dambeyn ku asaasay kambani kale oo uu magac daray X.com may X-kan ma original X.com kaas oo maanta loo yaqaano PayPal shaqadiisuna ahayd online banking ugu dambeynna waxa ka iibsaday shirkadda eBay 2002 ayagoo kaga iibsaday lacag gaaraysa $1.5 bilyan dollarka Mareykanka halkaas uu Elon si nadiif uga qabsaday 180 milyan oo lacagtaas kamid ah ugu dambeynna Elon xagaas ayuu ku noqday maalqabeen hadaba lacagtaas oo dhan muxuu sameeyay ay kula tahay midna xisaabta ku darso haday sheekadu taagan tahay Elon mar walba ka filo dhanka khatarta iyo halista ah hadaba sidii caadadiisa ahayd wuxuu ku dhaqaaqay fikradii waalidahay ee ahayd inuu haaf ka mid ah lacagtii uu PayPal ka helay ku maalgashto shirkadaha kale ah SpaceX
Tesla iyo Solar City taasoo xitaa afkiisa ka sheegay in percentage-ka uu ku guuleysan karo waqtigaas uu ka yaraa 10%. Sideed lacagtaada oo dhan ugu bixin kartaa wax percentage-ka aad ku guuleysanayso uu ka yaryahay 10%. runtii middan waxay ka mid ahayd mid ka mid ah waaliyaha uu qaba ninkan inuu mar walba u bareero halista joogtada ah. haddaba ninkan ilaa yaraantiisa waxaa ku jirta fikrad ahayd inay ibni aadamku ka tagi karaan dhulka si ay planetka kale u tagaan. marka aan soo laabano shirkadihiisa, shirkadda Tesla markii horeba waxay ahayd shirkad sii jirta taas oo markii hore uu sheer ku darsaday ugu dambeynna uu la wareegay. ujeedka uu la wareegayna wuxuu ahaa inuu hormariyo casrigan cusub ee ah inay gawaaridu ku shaqeeyaan qaab electric ah, laakiin fikraddan ayaa noqotay mid ka qaalisan sida uu filayay. dhanka kale markaan u nimaadnana shirkadiisa SpaceX dhulka ayay sii galaysay. Elon-na waxaa soo wajahday xaaladtii ugu xumayd oo ah inuu labadooda mid ka mid ah badbaadsado shirkadiisa gawaarida ee Tesla ama SpaceX oo uu lacagtiisa oo dhan isugu geeyo, taas oo aad uga adkeed asaga heer uu yidhaahdo labadeeda shirkadood waxay ii hayeen labadayda cunug oo kale mana kala dooran karin. sidii ayuuna sameeyey oo ma uuna kala dooranin. ugu dambeynna 6 sano iyo 6 bilood oo wareera kadib riyadii Elon ee ahayd tegidda space waxay noqotay mid rumowda. You see them both line up? Inside shutdown. Inside boosters. intaasoo keliya maaha, Elon waxaa kale uu daaha ka qaaday suurtagalnimada in hal gantaal laba mar la isticmaali karo halka ay markii hore ahayd in halkii gantaalba hal mar la isticmaalo, halkaas oo uu ku noqday qofkii ugu horreeyay ee suurtageliyay arrintan. dhanka kale Tesla waxay dib u habeen ku samaysay technologies-kii hore iyo sidoo kale injineeradii hore uga shaqaynayay, taas oo ugu dambeyn awooday inay cirkaas ku shareerto muddo sannado kooban ah kana mid noqoto mid ka mid ah kambaniyada ugu waaweyn caalamka oo dhan ayadoo ka hormartay dhammaan shirkadihii kale ee gawaarida soo saaraysay. midda kale waalida ah ayaa ahayd intii lagu guda jiray waxaasoo dhan Elon inuu dhanka kale ka sii asaasayay shirkado kale sida shirkaddan oo uu ugu magac daray The Boring Company, taas oo ah shirkad isu socod dhulka hoostiisa ah, taas oo uu leeyahay waxaan ku yaraynayaa taraafikada iyo jaamka magaalada. iyo sidoo kale barfuumkan oo la yidhaahdo wuxuu ka sameeyey tiimo gubtay oo kale. kolay cid og malaha ujeedada uu ka lahaayay iyo inay ka mid ahayd mid ka mid ah dhaqamadiisa ciyaalnimada. waana xaqiiq Elon Musk inuu ganacsiyadiisa u adeegsado qaab la odhan karo inuu ibni aadamka ku yasayo oo kale, halka uu mar walba afkiisa ka yidhaahdo waxaanaan samaynaya ibni aadamka ayaan ku badbaadinaya. dib ayaanan ka ogaan doonaa waxaasoo dhan. haddaba aan u soo laabana dhanka kombaniyadiisa. sidoo kale wuxuu soo saare ka noqday OpenAI 2015 asagoo ugu dambeyn ka tagay kambanigaas khilaafaad dhexmaray awgeed, taasoo ugu dambeynna ka dhigtay inuu samaysto AI u gaara oo uu ugu magac daray waad qiyaastay XAI. ereyga X ninkan maxaa laga siiyaa talo? haddaba dhinaca kale marka laga fiiriyo ninkan ayaa lagaga dayan karaa waxyaalo badan, haba ugu horeeyaan qaab maamulkiisa iyo liidernimadiisa. ninkan ayaa la sheegaa wakhtigiisa ugu badan inuu u huro xalinta dhibaatooyinka ee shirkadihiisa. waxaa la sheegaa inaysan marnaba kala dhammaan asaga iyo injineeradiisa oo shaqeeya heer xilliyada qaar ay isku gaadhaan ilaa habeen badh. midda labaad, wax walba su'aal ayuu ka keenaa ninkan. waxaasuu su'aasha ka keenana wuxuu jecel yahay inuu jawaabteeda degdeg ku helo. waxaa dhacaysa inuu ku cadaadiyo shaqaalaha inay waxaas xalkooda la yimaadaan muddada intaas leeg ayadoo ugu dambeynna wixii sidaa lagu xalinayo. dhanka kale fikradiisa waalida waxay dhiirigelisay injineero badan oo xirfad leh kuwaasoo ugu dambeyn sameeyey waxyaabo aan caqligal ahayn. haddaba weli su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah ninkan ma dhab ayay ka tahay inuu rabo inuu caalamka dhanka wanaagsan u bedelo mise weji kale ayaa u qarsoon? inta aynaan u gudagelin wejigaas kale haynu u nimaadno dhanka Twitter-ka. Elon Musk has bought Twitter for approximately $44 billion. He's going to be paying Musk put in an offer, an unsolicited bid to buy the social media platform. $44 billion. sidaan la wada socono dhammaadkii 2022 ninkan wuxuu la wareegay sidoo kalena uu iibsaday aaladda Twitter asagoo ku iibsaday lacag gaadhaysa $44 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. haddaba midda hadalhaynta badan dhalisay ayaa ah muxuu ka damacsanaa iibsashada Twitter, sidoo kalena waa maxay damaca ka soo galay platformkan. sida uu marar badan sheegayba wuxuu ku tilmaamay iibsashada Twitter danta uu ka leeyahay kaliya inay tahay free speech ama inuu u ogolaado inay dadku ra'yigooda si xor ah uga hadlaan. laakiin ma kula tahay midaas? haddaba isla habeenkii uu la wareegay aaladda Twitter waxa uu soo dejiyay qawaaniin ka adag kuwii hore. qawaaniintaas adag oo ka dhigtay inay meeshaas shaqadooda ku waayaan kumanaan shaqaalihii hore ah kuwaasoo horey uga shaqaynayay platformkan. dhanka kale waxaa dhacday inuu magacii hore ka bedelo sidoo kalena uu ku bedelo xarafkiisii uu jeclaa ee X.
haddaba midda dad badan ka yaabisay ayaa noqotay markii uu Elon bilaabay inuu ka saaro aaladda Twitterka wariyayaal iyo sidoo kale journalistayaal kuwaasoo asaga dhaleecadeeyay ama ka soo horjeedsaday intaasoo kaliya maaha xitaa wuxuu bilaabay inuu dad badan ku aamusiiyo awoodiisan cusub. Twitter suspended multiple journalists from prominent outlets, including the Washington Post, the New York Times, and CNN. Tonight, a number of high-profile journalists have been silenced. middan oo saan wada aragnay gebi ahaanba ka soo horjeeday waxaan uu sheegayo ee ah inuu Twitter la wareegay sababtoo ah inuu ka dhigo aalad free speech ah. haddaba sida muuqata ninkan ayay dad badan ku wareereen qaab dhaqankiisa iyo weliba sida carruurnimada ee uu dhaqmo mararka qaar iyo sidoo kale fikradiisa waalida ah. There's almost a demon mode of Elon Musk where he turns really dark. And that can be very problematic, especially when it came to acquiring. mideeda kale ninkan ayaa ibnu aadamku la dhaqma qaab ah inuu yasayo oo kale waana sababta uu sameeyay shirkadan oo lagu magacaabo Neuralink taas oo uu ugu talagalay inuu maskaxda ibnu aadamku ku xidho computer si computerka looga maamulo. ninkan ayaa waayadiisii ugu dambeysay la soo baxaya wejiyo kale kuwaasoo gebi ahaanba ka gedisan wejigii hore ee looga bartay ee ahaa inuu iska dhigayo qof jecel inuu caalamkan u hago dhanka wanaagsan asagoo la soo baxay wejigiisa dhabta ah. maalmihii la soo dhaafay ay ahayd markii uu soo faragelinayay buuqii ka jiray dalka Ingiriiska ee muslimiinta iyo Kiristaanka ka dhaxeeyay asagoo weliba si toos ah uga soo jeesaday dhanka Kiristaanka welibana sii hornaya banaanbaxyadaas iyo buuqaas sidoo kalena uu xitaa bartiisa Twitterka soo gelinayay boostiyo duriinku ah muslimiinta. waxay haataba ninkan ayaa ugu dambeyn wejigiisii xumaa iyo cunsuriyadnimadiisii dad badan daaha uga fayday. haddaba midda isweydiinta mudan ayaa ah muxuu uga dan leeyahay isbeddelkan cusub ninkan sidoo kale ma laga yaabaa inuu wax kale oo ka weyn soo wada ninkan. dhab ahaantii aad ayaad ugu mahadsantihiin saaxiibayaal daawashada muuqaalkan fadlan haddaad muuqaalkan ka heshaa kala xishoon inaad asxaabtaada la wadaagto sidoo kalena aad muuqaalkan like noo saarto iyo midda ugu muhiimsan oo ah inaad channelka subscribe saarato si aan u wada soconno mahadsanid.